magaalada Gaalkacyo ayaa lagu soo dhaweeyay gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka dawladda Soomaaliya Mahad Cabdalla Cawad garoonka diyaaradaha Cabdullaahi Yuusuf ee Gaalkacyo waxa ku soo dhaweeyay wasiiro ka tirsan Puntland qeybaha kala duwan ee bulshada maamulka gobolka ee kan degmada Gaalkacyo soo dhaweynta iyo marxabeynta kadib ayaa loo gudbiyay aqalka madaxweynaha dawladda Puntland ee ku yaala magaalada Gaalkacyo waxaana halkaas ku soo dhaweeyay madaxweynaha dawladda Puntland iyo xubno kale gudoomiyaha baarlamaanka dawladda Puntland Mudane Saciid Xasan Shire ayaa ka hadlay ujeedka safarka uu ku yimid gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Soomaaliya magaalada Gaalkacyo maantiin madaxweynaha iyo gudoomiye ku-xigeenka iyo odayaasha dawladda iyo cidii kala martay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib waxaan maanta ina soo booqday oo nala joogaan soo dhaweynay gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka dowladda federaalka ah Mahad Cabdalle oo ah reer Puntland booqashadiisuna waxay ku saabsan tahay mid khaas ah oo isaga khaas u ah dalkiisa iyo dadkiisa uu ku soo booqday waxaan ku faraxsanahay inaan soo dhaweyno maadaama nin madaxa oo reer Soomaaliyeed ah ee baarlamaanka ku-xigeenka baarlamaanka Soomaaliyeed reer Puntland ah Puntland magaalada Gaalkacyo si diiran lagu soo dhaweeyay aad baan u faraxsanahay waan soo dhaweynaa gudoomiye soo dhawow booqasho rasmi ah iyo mid khaas ah Puntland wadankaaga weeye magaalada Gaalkacyo soo dhawow waan soo dhaweynaa aad iyo aad ugu faraxsanahay maashaaga Mahad Cabdalla Cawad ayaa sheegay inay tahay markii labaad uu yimid Puntland gaar ahaan magaalada Gaalkacyo dhammaan intii maanta sida sharafta leh xurmada leh igu soo dhaweysay caasimadda gobolka Mudug ee Gaalkacyo aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa safarkaygu wuxuu ahaa waa safar la xiriira socodkayga hore fursad uma aanan helin inaan caasimadda gobolka aan soo booqdo mas'uuliyiinta waxa weeye heer gobol iyo waxa weeye heer deegaanba waxaan u ballan qaaday in aan socod khaas ah aan Gaalkacyo ku iman doono waqtina aan runtii ku qaadan doono dadka iyo waxa weeye waa deegaan doorashadaydu weeye waa xaruntii laga xukumay gobolka oo waxa weeye anigu tawfiiq waan ka soo jeedaa Gaalkacyana waa waxa weeyaan caasimadayadii inaan imaado aad iyo aad baan maanta ugu faraxsanahay in madaxweynihii dowlad goboleedka iyo gudoomiyihii golaha wakiilada iyo mas'uuliyiin aad u fara badan oo hawl u jooga iyaguna halkan inaan kula kulmo oo ay si diiran igu soo dhaweeyaanna sharaf gaaray ii tahay waxay ii muujinaysaa in aan deegaankaygii aan imid in aan waxa weeye soo dhaweyntaasi waa waxa weeye dowladnimaday qayb ka tahay xushmada iyo qadarinta ay Puntland ay dadkeeda iyo mas'uuliyiinteeda u hayseen muujinaysaa aad iyo aad baana uga mahadcelinayaa waxa weeye heer fulineed iyo heer sharci dejineed dowlad goboleedka Puntland Mahad Cabdalla Cawad gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka dawladda Soomaaliya ayaa markii labaad imaaday Gaalkacyo isagoo la filayo inuu kulamo la qaato madaxda sare Puntland Cabdullaahi Yare TV-ga idaacadda SBC magaalada Gaalkacyo